بسم الله الرحمن الرحيم سو دواada meeshaan waa inii sheegay ilaa 500 600 700 caaw gaarto waaye arrin muhiim ah jirta wax badan ayaan ugu soo kordhinayaa oo inaga maqnaa saaxiibayaal hala share gareeyo as soon as possible الحمد لله شكر الله إله هو ذا محله waxaan u sheegayaa intaas soo dhawaabayo waxaan u sheegayaa dhammaan taageeradeyda maanta waa la qorayaa waxaan u sheegayaa dhammaan taageeradeyda oo idil iyo dadka ku xiriira boggayga Facebooka iyo YouTube-ka abuuk soo dhawow waxaan u sheegayaa dadka ku xiriira Facebookgayga iyo YouTube-kaygaba waxaan leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hala share gareeyo maanta bisha waxaa weeye 16 bishii 3 2020 saacadaydu waxay sheegaysaa 8:54 PM cishihii baanu insha allah mar dhow tukan doonaa ilaahay naga aqbalo mahad jaamac soo dhawow caawa halkan waxaan ka bayaan ka dhigayaa hadalkayga oo clear ah ka dhigayaa oo aan jeclahay in la wada share gareeyo dhammaan bisha maanta waa 16 bishii 3 2020 saacadu waa 8:54 waxaan bayaan ka dhigayaa maadaama Facebooka ku jiray muddo fara badan YouTube-ka waan ku yar cusbahay laakiin Facebooka muddo aad u fara badan ayaan ka hadlayay waxaa laga yaabaa dad badan inay dhibsadeen waxaa laga yaabaa dad badan inaan u gafay waxaa laga yaabaa dad badan si khaldan inay u fahmeen hadalkayga waxaa laga yaabaa shakhsiyaad inaan aflagaadeeyey wayna dhacday waxaa laga yaabaa dad qabaa'il ah inaan wax ka sheegay waxaa laga yaabaa inay dad dhibsadeen marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh first of all secondly waxaan dhihi lahaa yacafiya waxay ugu dambeysay YouTube Facebook everything oo social media ah ayaan ka salayaa sababtu ay tahay markii aan ka helay dad badan inay dhibsadeen hadalkayga Soomaalidu waxay ku tiraahdaa meeli lagu kaftamay doqo wuxuu maleeyaa in lagu kala tagay ani Soomaalida aad baan u jeclahay aad baan u jeclahay inaan warka la qaybsado inaan u soo tabiyo waxaan jeclahay in Soomaaliya ku noolaato barwaaqiyo baraare waxaan caaw u duceynayaa Soomaaliya oo idil meel ay adduunka ka joogaan ilaahay cudurkan dhibaatada wata ilaahay inuu ka badbaadiyo yar iyo saqiir iyo kabiir
cirooriya caano leh dhalinyaro iyo duqooshin bulshada Soomaaliyeed sidii u dhan yihiin inuu Ilaahay cudurka ka badbaadiyo waxaan kula talin lahaa aniga iyo dadka social media ku jiraba waxaa laga yaabaa inay dad badan dhibsadeen aniga Daahir Cali Sow Shiino ninka la yiraahdo Khaakhaan inkastoo raggaas ay badan yihiin haddana waxaan oran lahaa horta hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal anigu waa ka baxay wixii hadda ka dambeeyana waxaan u maleynayaa inaan isku aragno bannaanka oo mooyee social media isku markeeno sababtoo ay tahay dad badan oo iga soo cabtay awgeed ayaan uga baxayaa Facebooka iyo YouTubeka iyo anything oo social media ah ma doonayo aniga shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego wanaagsan tahay laakiin in ay dhibsadaan hadalkayga ay dhibsadaan aad baan uga xumahay intii aan u geystay dhibaatada ama waxyaalo badan ka sheegay waxaan ka baryahayaa waqtigan dhamanayna Ilaahay baa og annaga ma ogin waqtiga aanu maaragtay adduunkan waa wax yar baa la joogayaa waxaa fiican nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri saddex qof haddii isku qacaan hebel waa nin xun shaki kuma jiro qofkaas oo ahlu naar saddex qof haddii dhahdana hebel waa nin fiican shaki kuma jiro shakhsigaas waa ahlu janno marka Allah naga dhigo kuwaas annaga dhammaan annaga inta muslimiina marka waxaan dhihi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay raalli iga noqda haddaan inii gafay haddii ay jirto xumaan aad iga tirsanaysaan hal la sheer gareeyo wixii caawa ka dambeeya social media waan ka baxay Facebooka YouTubeka wax kasta waan ka baxay dadka ii baahan way heli karaan sida ii helaan baa ay soo raadiyaan way garan karaan sida ii heli karaan aad iyo aad baan maaragtay uga xumahay inaan dad badan iga caroodaan waliba dad aan aad iskugu dhownahay oo Faadimo oo saaxiibtay ahayd qof aan aad u jeclahay ah oo aan aad isku xushmayno anigu waxaan ka yimid dhal wadaad baan ka yimid dhal sheekh baan ka yimid dhal ahludiin aan ka yimid ka soo jeedaa ma doonayo dadka walaaladaya inaan wax dhibaato ah iga tirsadaan waxaa wanaagsan qofka bini'aadanka inuu qalad qofka waa ka dhaca anagu bini'aadan baan nahay ma nihin dad wada dhan qofka Ilaahay un baa dhan bini'aadanku qalad waa ka dhacaa nabiga calayhi salaatu wasalaam Maxamed iyo Ilaahay weyna waaxida un baan khalad ka dhicin hatta nabiyada inta kale mooyee Maxamed mooyee inta kale niman khalad galin malaha marka khalad waxaan ka dhicin nabigeena calayhi salaatu wasalaam Maxamed ku saliya nabiga iyo Allah casiiska ah oo farxiimka ahaa un baanan wax dambiya ka dhicin gali karinsi nabiga waa laga tirtiray inuu dambi galo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam magarat ilaahayna waaba kana abuurtayba annaga dhan iska keenle marka labadaas u baan dambi gali karin iyo malaa'igtuna ilaahay amarkiisa uu ku socotaa dambi maba gali kartaba shaydaanku dambiyiisu aad bay u farabadan yihiin marka ilaahay shaydaanka naga qabto intii iga carootay waxaan oran lahaa bilisxaaniga iyo cafiya wixii hadda ka dambeeyana waxaan u maleynayaa inaanu masaajidyada iyo meelaha quman isku aragno mooyee inaynan igu arki doonin social media intaanu soo sheekaysan karna waa soo sheekaysanay intaan wax isku sheegi karna waa isku sheegnay wixii hadda ka dambeeya waxaan u maleynayaa inaanu live isku arki doono qofkii ii baahan inaan live iyo meelaha masaajidyada iyo inkastoo hadda magaalada la wareegi karinba laakiin masaajidyada qofkii maada waa sarkeennaa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad markii labaad marka saddexaad waan ku celinaya arrintaas ha laga raali noqdo anigana wixii dadkii dhibaatada ii geystay ama yaacay
cafi saamax bay yihiin caawa haddaan dhinto waxba uma qabo idinkana sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaanan maaragtay wax isku qabin oo caloosheenna isku fiyowaato ilaahay waxaan ka baryahayaa casiiska ah waxaan ka baryahayaa cudurkan maanta waddankeena lagu sheegay ilaahay cudurkaas inuu ka badbaadiyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan laas Gamboni iyo laas Caseer ilaa shacabka meesha alla meesha joogaan ilaahay ha ka badbaadiyo cudurkaas dowladdu waxay qabateen waa wax sharaf leh Soomaaliyana waxaan dhihi lahaa ha israacdo dhammaan allaha noo keeno shakhsi waddanka ka taxadira oo waddankaas Soomaaliya kor u qaada ilaahay nooma keeno qof waddanka hoos u dhiga ilaahay baan taa ka magan galnay markaanoo taas hadalkay ku soo duubaya caawa faatixadaan isku marno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wixii hadda ka dambeeyana Facebook sida ay sheegay weeye mar dambe ma igu arkaysaan social media idamka ilaahay baan ka baryayaa inaanan mar dambe soo gelin marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markii koowaad markii labaad aan iscafino intii aan dhibaato u geystay ama qabiil haddii ahaan leed ama shakhsi hadduu ahaan lahaana cafi saax buu iga yahay anigana waa cafinhayaa ayagana hay cafiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu insha allah bilkariim ilaahay ha naga dhigo kuwii jannada isku arka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bye bye Soomaaliya